العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته درس كان كصابسا تربية عرورته هل تصالح مسينية ilmuhu markuu yariya xafaayad bay islaamuhu xidhaan waa shan yar bambariska waxaa loo xidhaa guryahan imika la degayay dunida cusube waa wada kaarbad iyo dhul aan ciideeni caadiga ahayn markaa ilmaha lacag baa lagu kaajisiyaa lagu xaarsiiyaa baasha bambarkiisa yar buu xidhan yahay hay muddo xidhnaada sanad iyo badh laba waxba xidhnaada islaamku marka ay rabto inay bambarka lacagtiisa joojiso maxaa la sameeyaa ilmahan haddaad tidhahda dhegayso warya meeshan guri baa la yidhaahdaa waa nadiif lama ogola in lagu kaajo musqushaasaa tegaysaa waa inaad musqusha kusoo kaaldaa ma soconaysaa naxafaayadda ka fur socon mayso maxay u socon weyday capacity uu warkan aad sheegaysee nooca kana ku qaado baanu ilmaha kane lahayn awaamirtaasi markaa socon mayso haddaa maxaa soconaya markaa waxaa soconaya inaad ilmahan train garayso ilaa iyo fikradaasi inta ay maskaxdiisa ka degayso oo uu aqbali karo dabeetana waxaa la yidhahdaa baydhmaan soo iibiya wiinan ku kaajo xafaayadana ka fur 5 minute baa marbay salaanta kusoo noqota hooyo kaadi ma ku haysaa kaadi bahal baa lagu fadhiisiya kaadi ooyo kaadina ma haysa markaasuu ilaaha ka ooya waxaasoo dhan waxaa la rabaa in lagu train gareeyo meel gaaroo lagu kaajaana inay jirto qaab gaaroo loo kaajaana inay jirto 2 casho 3 casho maalmo horu kala yara baxsadaa adhow way aragtaa isagoo halka ku kaajay waa yara masmasaxda waa maagtaa markaas la yiraahdo mar dambe ku kaajana bal waxaad samaysido laakiin muddo marka saan loo daba socday 10 minute ba maalmaha hore 5 minute ba marbay ku soo noqotaa markay uu la soo yara qabsado saacadiiba maro hadhow yararka ka waaweyn baa lagu balamiyaa inay ka kaajiseen hooyina kaasi isku kaajabay tiraa markay sii baxayso oo waxay rabtaa trainingkii inaanu lumin waxa laga yaabaa usbuuc 2 usbuuc marka sidan loo ilaaliyo usbuuca saddexaad waa reerka kamida uu yaqaan halka lagu kaajo guri dambe lagu kaajaya ma jiro la sariir baa lagu kaajaynin walaa fadhiga lagu kaajin walaa meel laba yani waa muntabit training kii buu qaatay markii course laga saaray trainingda ayuu qaatay dabeetana sidii buu fulinaya nolosha gabgeedu marka waa caynkan waxay se u baahan tahay odayga iyo islaanta guriga wada jooga inay aragti midaysan ka leeyihiin tarbiyada inay garan karaan ilmahan maxaynu siinaa maxaynu u diidnaa maxaynu ku rabaynaa inay isku aragti ka yihiin marka isku aragti way hadii isku aragti laga noqdo ilmaha maalan yar hadii islaanta markay dhaqaqadooda ay yiraahdaan bas kaga kaadi meesha waxa ma leeyaga masixi doonay maxaa soo bixi lahaa waligi ma barteende ilaa marna ku kaadi baa la leeyahay marna ka daabaa la leeyahay marka waxa u baran maayo trainingkii baa qaldamaya laakiin reerkii oo dhamay markuu isku waafaqay in ilmaha la ilaaliyo oo lagu wado ilaa intuu ka qaadanayo trainingkaasi reerkii uu isku waafaqay shaqadaas way soconaysaa waxaan uga jeedaa ilmaha balbala waxa ku rida waxa qasa marka odayga islaanta carruurta wuxuba kala wada aragti noqdaan qolba nolosha si uu aragto waxa adkaanaya in ilmaha tarbiya fiican la siiyo laakiin hadii isku aragti laga yahay hadii laga wada tashado hadii meel qura loo wada arko waxay noqonaysaa in si qura loo wado taasi waxay fudaydinaysaa ilmuhu inuu muntabit noqdo waxay leenahay marka ilmuhu markuu garaadkiisu xadka soo gaaro sida aynu u baray in musqusho qura lagu kaajaan meel kale lagu kaajay sida aynu u baray inaan marada la iskaga kaajin ee marka la kaajiyo marada la iska bixiyo sida aynu u baray nidaamkaasi gurigu u dhisay inuu raaco وين النولشي صدّن أبرنا إنه نظام راه فوضى وحبا ما ترتو وين إنه برا علمه قارو سحدة مثلا سلامة الصومالية علمها ويسي دا سي وضاء يو يا أردو يتر هذا سيحو وهو قعمو برتمي وأقبل ياده مرة الله عليه بكرة نقرأ كتابه شقاق بلا بير عدابة إلى هذا ويلسه بودي سهدرة وابع عقابنت ما أنتو دم بيسي ديسا مركا يدكتنو يا أما إذا مركا يرقادو عباد بلا بيا لكن قليها مثلا نظام هذا كل رقمان waxay tijaabiyaan ilmuhu marka uu gaadho waqtigiisii hurdada waa loo nadiifiyaa
bambarkaa laga bedelaa waa loo maydhaa caanihiisi iyo wixiisii baa la siiyaa markii la dhargiyey ee la nadiifiyey wixiisi dhammaaday intay qaadaan boqolkiisa la geeyaa wuu ooyaa lalama hadlo markuu iska oohin dhammaysto iska seexanaya labada habeene horuu is odhanaya balina in cidi kuu juuqdo habeen labaadkana wuu ooyaya habeen saddexaadka wuxuu ogaanayaa raganimadu inay ku jirto inuu meeshiisa iska hurdo waayo wuxuu bartay mar haddii kaadidiisii iyo wixiisii inta laga maydhay bambarkiisiina loo xidhay caanihiisiina la siiyey wax ka maqani ma jiro oohintu asliyan iyo qosalku waa luqada ilmaha yar uu yaqaano waa luqada keliya uu yaqaano markuu wuxuu ku farxay ama uu satisfied yahayna inuu qoslo cagabidhiyoodo markuu wax diidan yahay ama wax doonayana inuu ooyo dugaajooda wuu ooyaya hadduu cadhooda wuu ooyaya mar waa luqadiisii markaad yaro dhigtay hadduu islaanta hayhaynteedii iska rabo asay tahay waktigii la seexanaya weenu seexdaa wuu ooyey lahalla hadli maxaa ku dhacaya beer caddaani ma jirto islaam waxay dhahay inanku wuu beer caddaa lama beer caddaado beer caddaanta waxa keena marka hore inaad adigu xumayso laakiin haddii marka horeba nidaamka la baro ilmahaasi habeenka koowaad baa laga yaabaa inuu yaro buuqo habeenka labaad baa laga yaabaa inuu yaro ooyo habeen saddexaadka caadu isaga seexanaya in dhibi ku timaado mooyaane ma ooyayo noloshoo dhammi markaa waxay u baahan tahay in trainingku ama tababarku inuu qaab odayga islaanta reerku isku waafaqsanyahin inuu socdo waxa la barayaana wax la garanayo inay tahay ilmuhu markaa muntabit buu noqonaya shayga kaa ku xigaan tilmaamaya waxa weeyaan ilmuhu markuu soo koro wuxuu u baahan yahay alqudwa saalixa ku dayasho fiican inta uu yariye guriga joogo inta badan aabihii iyo hooyadiiba modelka u ah waxa ugu weyn uu dunida yaqaana waa in sida aabba loo ekaado ama sida hooyo loo ekaado caalamku ku xeerayna waa guriga kan laakiin inta badan wuxuu kaloo bartaa dhaqamo badan oo ah aabbaha iyo hooyadu waxay kula dhaqmeena مثلا nabigu calayhi salaatu wasalaam maalin buu gabadh arkay ilmaheedii yareyd ku leh kaali hooya waxbaan ku siinayaa markaasuu wuxuu nabigu ku yidhi ma waxbaad siinaysaa markaasay tidhi haa maxaad siinaysaa buu ku yidhi waxay tihi timir baan siinayaa haddaana timir siin lahayn been baa lagu qori lahaa buu nabigu yidhi yani nabigu muxuu barayay calayhi salaatu wasalaam ilmaha inaan been lagu sasabin beenta xad kaa gaadhi ilmaha haddaad tidhaa waxbaan kuu soo iibinayaa aad iskaga reebto aabba xarood guriga gal anaa kuu soo iibinaya wax walba guriga gal hadhowna aad iska timaado wuxuu baranayaa in beenta laysu sheegi karo waayo tacliintan dariskanadaa siiyey ilmuhu waxaad soo iibinaysa hore tiraa waxaasaan kuu keenaya waxa kuu keeni maayo ma soo iibinayo waqtigeedii maaha si kale u qanci سدرادد أباها يهوي يدقورك تشوغا وإنا نقضان مثال أعلى قدوة حسنة عدالة دو إلمو قوريكو كبرتا وحنا نسوى الظلمين وحويان إلمهن إنا عدالة برين مثلا نقاك الصومالي وحويان إلمها يرين وحو البلي كوكلا ناني وحو الله ونقا الصومالي كيربا صوكاعي كوي بوشار كيسا كو قبصانيا هو يسيبا إلى ذهينا قام سيسي وكي سي مكات كو قبصان نوتا كوبكيسا laga siinaya wax walba waa cadaalad xumo kan yar waa in la baraa wixii sameeyana wax kale inaan u qabsan koobkiisa iyo maradiisa iyo intiisa ha qabsado dii laga qaado ha ku dhago laakiin kuwa kale alaabtooda weeraan ku dhago haduu ku dhago maxaa la yeelaya intaad ka qaado waxa tiraahaa malihid adigu hooyo kambaale waa mid kale ka weyn naxariista la baraa ka weyn hadaad qancin karto aabba uu ka yariyo ma u dhiibi kartaa hadduu aqbalo ha aqbalo laakiin hadduu yidhaha may ha ka soo qaadin war si inanka yara ku odhanin ha haysto maxaa dhacaya gurigan inuu cadaaladu ka socoto qof waliba wixiisa mooyaane waxa qofka kale inaanu ku qabsanin inta uu isagu leeyahay inuu lahaado ilmaha yara Soomaaliga waxa dhibta dhacda marka la geeyo baanhaaga maxaa tiraahdaa meeshan yara carruurta kindergartenka nursery meelan ciyaalka la geeyo وفيرسو ilma Soomaaliga marka nursery-ga la geeyo ay mudadkuba waxay haystaa ka qaadaa kaas kuwa nursery-ga yiraahdaan uu seen u galaa ilmaha dadkii kale wuxuu ku qabsan way waa nin bartay wuxuu qabsadaba in la yiraahdo u daaya dabeetana nursery-ga markuu tago waxa alaabta alla isaga qaadanaya isaga iyo gabadha nursery-gu baas qabsanayo le malihid adigu kan malihid ba isaga bartay wuxuu qaataba in looga haro qaacidada uu yaqaan
idan wuxuu u baahan yahay ilmuhu markuu gurigiisa joogo inuu barto wuxuu leeyahay inuu qaato wixii loo fasaxay inuu qaato waxaanu lahayn ama loo diiday inuu ka tago muntabit buu noqonayaa wuxuu baranayaa inuu kala dambeyn jirto wuxuu baranayaa cadaalad nabiga kaleey salaatu wasalaam nin baa u yimi deetana wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiyo inankaygan aan wado waxaasan gaaru siiyey markhaati uga aho markaasuu wuxuu ku yidhi nabigu oo carruurtaadii oo dhan ma wada siisay wax kale markaasuu yidhi maaye markaasuu wuxuu nabigu ku yidhi anigu cadaalad darrada ama dulmiga markhaati kama gala buu nabigu ku yidhi dulmiga markhaati kama galo ilmaha guriga markay joogaan haddii loo cadaalad sameeyo marka wax loo iibinayo wax loo wada iibiyo marka wax la siinayo wax loo wada siiyo loo cadaalad sameeyo hadduu jiro mid wax gaara maalan ninkii maanta dugsiga kow soo gala jaa-isad buu leeyahay gaara waa taasi waa waxu shaqaystoo dheeraada laakiin wixii guriga lagu joogay caadiga ahaa in laga sinaado waa laga yaabaa ilmaha waa adiga inaanay si wada jeclayn ama aanay kuusan midbaa markaad kaalaya tiraa midna uu soo cararaya midna maanta o dhan kuu dhegdhigi maayo laakiin haddana adigu markaad cadaalad samaynayso waa inaad u cadaalad samaysaa gurigan dadka ku nool waa inaad u cadaalad samaysaa ilmuhu waa inuu markaa cadaaladda kusoo bartaa guriga uu degan yahay aabbaha iyo hooyadu waa inay u cadaalad sameeyaan waxaan leenahay ilmuhu wuxuu u baahan yahay alrifqa asaalixa asxaab wanaagsan oo uu ku xidhmo inuu helo wuxuu u baahan yahay baynu leenahay ilmuhu wax badan noloshan maanta aynu joognana dhib badan baa ka taagan oo ah gurigii waa lagula leeyahay oo t v baa ka jira oo wax baa ka jira idaacadaa ka jira raadiyo baa yaal jaraa-id baa soo gelaya baliya baas kale dunida maanta joogta ugu xornimo yar yani waxaa laga yaabaa inaad istirahdaan dictatorka xornimo yar iyo dunida ma aha waxaan rumaysnay dunida xadaarada sheegata inay ka xornimo yartay kuwa dictatorka laakiin waa su-aal isweydiin lasee ku xornimo yartay dictatorada inta ninka madaxda iyo siyaasadiisa iyo intaa haddaad nabadgeliso nolosha kaloo dhan xor baad u tahay intaasunbaa mamnuuca intaa ninkaa odayga ayaa gaarkiisa lama taataabto wixiise ka soo hadha xor baad u tahay qolada tan waxa ka soo hadho dhan sharca ka yaala hadaad bibitas tiraahda furo 20 sharca lagu soo saar magacaaga iska bedel hadaad siraa 50 sharca yaala ilmahaada adigu dhashay sharca ka yaala wuxuu baranayo saa wax loogu barayo 10 sano ama 9 sanadood waxbarasho qasabo iyaga tooda in loo dhigo xataa curriculumkani war waxbuu fasaahadinaya anigu ma rumaysni laga aqbali maayo ama iskuulka ku dhiga ama guriga ku dhiga curriculumka iyaga waa inuu noqdaa saan anagu arkayna wax loo idan xorriyadku halkan bay ku yeeriyiin way qaanuunka tira badan 200 oo qaanuun baa yaal oo wax walba noloshaada kamid ah xadeynay waxa ku dhaad xor u tahay وين دام يسقاويسو أما إلهي النبي سعيدو أنت حرب ضدته بقرك ماشي أما الدولة ماشي شوكتنا إن هذا أمام ماكتو أمام مالت إيرادان وراقها الورد الدور الشدة إيراد كورد أنا حرب ضدته ده تصل حرية ده هالكرنين أنت سكون ماتا وحكى سهرة مجرى إذن وضنا ضتن مركات كلي قالوا لك إسكت شوكتة المها حرب ضاهي واحد دونتين أدبرتو سكول كاد دونتين أدجيسو قاب كاد دونتين أدوترين جريسو هالكان سماها qaabka wasaaradda waxbarashadu ay rabto in loo tareengareeyo iyo moolka dawladda tan ay waxbarashada ka leedahay iyo aragtida dawladda tan ay nolosha ka qabto ayaad ku qasbantay in ilmahaaga lagu tarbiyeeyo intaas waad ku qasbantay haddaba saad u balance garayn kartaa oo adiguna wixii aad rabtay u fuli karayaan waa masale markaa u baahan juhdi ka badan kii caadiga ahaa ee la bixin jiray ilmaha yari wuxuu u baahan yahay leena cayaar laakiin cayaartu waa inay hadaf leedahay cayaar badan oo imika la cayaaraa waa xanuun cayaarahan tviyada iyo waxa kan waxa uma taraan bal manahij qaldan bay gudbiyaan ama kartoon ha noqdo ama waxaan yare gacmaha caynkan ku yidhaahdaan magacyada badan leh ha noqdo waxaan oo dhan ha noqdo waayo afkaaraha ka dambeeyo dhammo afkaara faasida inta ugu badan waa mar labaad ma kobciyaan qofka jirhkiisa ee way caafimaadkiisa wax yeelaan ilmaha yari ma awoodi karo waqti dheer inuu fadhiyo
sasi daraadeed wasaaradaha waxbarashada iyo dhulka tacliinta lagu barto ilmaha yar every hour ama markuu xiisad qaataba birrif yar baa la siiyaa macalinka loo bedelaa waxaan oo dhan wax weeyaan ilmaha fadhiyi karin intan ka badan 40 daqiiqo ka yar nus saac baa laga dhigaa xisaska carruurta ilaa 40 daqiiqo qofku markuu weyn yahay energy-ga kaydin karaa jaacada marka tagta lecture 2 saacadood aad dhegeysan seem waxa laga yaabaa in 2 saacadood 3 saacadood fadhideen laakiin ina yar ma fadhi karo haddii inta ina yar soo ka haysato tiraa ag fadhi ma fadhi karayo kan guji ka riix ka xagga u dhaqaaq soo way energy-ga ma kaydin karo biologically baan suurtagal ahay ilmaha yar inta baaja loo fadhiisay 2 saacadood hor fadhiya caafimaadkiisa dishay indhaha wax noqonaya qaabkan uu fadhiyo muruqyadiisa iyo masaliskiisa wax noqonaya totally waa destroy garaynaysa waxa ka fiican ciyaarta meesha obbinka aad u saarto tan uu boodboodaya cararaya isagu kubadda ciyaar hadduu isagu kubadda ciyaaro isaga jirkiisa dhismaya laakiin kuwa ciyaara hadduu daawado muxuu helayaa TV inta tarfarsa Manchester ba ciyaaraysa daawo Manchester daawashadeeda waxba laga ma helo adoo ciyaara wax laga helaa adoo haddaad ciyaarto caafimaad baad soo qaadaysaa jirkaagii waa dididaysaa exercise baad samaysay waad kala baxaysaa laakiin haddaad maanta dhan TV hor fadhido waxba ka helimaysid ilmaha lamida ilmuhu ciyaar kama maarmo ولذلك النبي إسرائيل أما النبي يعقوب markii Yusuf ay inamadii kale ay ka cawdeen kala baxayeen waxa laga gala baxay wuxuu ahaa maxay arsilhu معنا غدا يرتع ويلعب bay ku ilaahay بريهنا لا soo ciyaaro ana la soo ciyaaradii waa aqbalay uu siiyay waxay dhahdeen wuxuu og yahay nabigu in ciyaartu ilmaha nodvandi u tahay inay u tahay necessary lagama maarmaan inay u tahay ilmu ciyaartu ilma ma oran kartid shaakilka ay haysto waxa kamid ah guriyo yar yar baynu soo degnay guriyo yar markii la soo degay halkan koobab qurarada baa la dhigtay halkan kabadho muraayada baa la dhigtay halkan sarra la dhigtay ilma waxa la leeyahay hataaban halka hataaban kana taabo xaqu qabtaa de way hadaba wax walba marka la ilaaha taaban in meel la fadhiisiyo maxbuus ma noqon karo melihin gaadan balaadan ama meel ku ciyaaro uma diyaartid adigu inaad ka hayso ama islaantu ay ka hayso dabada u saarto ay meel ay ku soo ciyaaraan tagaan guriga in hadaad ku hor joogto wax walbana tiraadaha taaban waa maxbuusnimadana ma soconayso ilmuhu waa qof bini aadama oo aan energy badan kaydin karin waxaan uu cunayo waa inuu ciyaara exercise sameeyo jirkiisu kala baxay si koritaankiisu ku soconaya normalitygiisu waa sida tan fadhigu normality ilma yar uma aha haddii marka inta meel lagu xidho la yidhaahdo normal oo inaad xaggana taban halkaa fadhi waxaan macquul ahay madax ku tarbiyeynaysaa waa inaad aqbashaa ilmuhu inuu ciyaari karo socon karo ilmaha ciyaartooda xad buu nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo salaad dadka tukinaya imaama ayaa labadii yararay oo awowga oo ahaa mid ka mid ah cali iyo faatuma ay dhaleen mid ka mid ah baa masaajidka soo galay iyadoo la sujuudsan yahay waxba loogeyn buu intuu soo dhex maray meeshii ayuu nabiga luqunta ka fuulay nabigoo sujuudsan ayuu dusha ka fuulay nabigu calayhi salaatu wasalaam sujuudii buu ku dheeraaday kii yarana waa iskaga dul ciyaaraya saxaabadiina waa sujuudsan saxaabadii way yaabeen marka war nabiga biyuu dhintay maxaa dhacay maxaa dib masaajidku inta la sujuudo imaamku soo batoosi waaya ka waran imaamkiina mid yar baa dusha ka fuushan oo dushiisa ku ciyaaraya wuu iska sujuudsanaa nabigu kii yaraba ciyaartiisii dhammaystay waa iska tegay kadib buu nabigu sujuudi ka kacay saxaabadiina ka kacay waxa la yidhi rasuulkiisa maxaa dhacay waxaan u siray nabiga ma nafta ka baxa maxaa ku dhacay baan isu weydiinay wuxuu nabigu yidhi inna ibni irtahalani inankaygi yaraba ay kooraystay buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fakarihtu an ucjilahu xataa yaqdiya xaajatah waxaan necbaystay buu nabigu yidhi inaan dedejiyo intuu dantiisa ka dhammaysanayo adigoo tukanaya hadduu ku fulo maxaad yeeli lahayd isaga daaya islaanta dili lahayd bal waxaa soo daynaysa markaanu tukanayna inanka soo daynaysa oran lahayd nabigana calayhi salaatu wasalaam isagoo dad tukinaya oo imaama oo masaajid jooga ayuu luqunta ka fuulay markaasuu fuushanaa ilaa iyo intii uu dantiisa ka dhamaysanayay maxay tani tilmaamaysaa muxuu nabigu qadarinaya calayhi salaatu wasalaam ilmuhu inuu ciyaartiisa uga baahaya deetana uu iska daayay isagoo tukanaya intuu ku dul ciyaaray markuu ciyaartiisa dhammaystay inuu iska tago maxlana ilmuhu wuxuu u baahan yahay in wax loo sheego la waaniyo malag maaha min khilaali akhtaa'ihim yubdicuun dhibaatooyinkan iyo akhtaadan ay samaynayaan bay wax ka bartaan idan in wax loo sheego wuxuu ilmuhu u baahan yahay baynu leenahay waxyaabo tiro badan leh
waxaan ku soo koobayaa ilmuhu inaynu waxbaraa buu u baahan yahay tusaalaan idin siinaya tusaalaadka waxbarista ka mid a matalan waxaa layna yidhi ilmuhu 7 jir markuu yahay salaada bara salaada bara macnaheedu ha tukadaa la yidhi salaada ha tukada macnaheedu waxa weeyaan 7 jir markuu soo gaadho xaddu tamyiiz buu gaadhay xaddu tamyiiz markuu gaadhay inaynu barno sida loo tahaaro qaato sida loo weysaysto sida loo tukado kow 10 jir markuu gaadho baa la yidhi waa lagu ciqaabaya hadduu salaada sidii fiican u tukan waayo 10 jir iyo 7 jir imisa u dhexeeya 3 sannadood 3 sannadood imisa salaadood baa ku jira haddaad tidhaahdo isku celceli sanadkii 360 5 salaadood sanadkiiba soo maaha bal 365 ku dhufo waa almost 1700 wax ka badan soo maaha 1800 meelaha 1800 3 ku dhufo waa wax 5000 ka badan soo maaha 5000 ee salaadood waxaa la rabaa inuu training ku soo qaato inuu la qabsan karo salaada haddaad adigu 5 hilmaamta ka waran taatana wuu yariya iska daaya 10 jir markuu gaadho tira war maxaad u tukan weyday tuko maada training ma siiyey 5 salaadood baa la rabaa inuu ku tababarto maalin uu mid tukado maruu 2 tukado maruu ku jaro maruu 3 ka tukado maruu ka seexdo maruu 4 tukado 5 salaadood baa lagu siiyey inuu training ku qaato si markuu 10 jir soo gaadho uu la qabsan karo u baran karo in salaad wax iska caadiyo noloshiisa ka mid oo period uu haysto oo uu tukan karo ay tahay markaas haddana la siiyay chance kale oo intuu ka qaan gaadhayo inaan dambi loo qoraynin almost 7 years training abuu qabaa idan markuu 15 jir gaadhay 7 sannadood oo training uu qabo wuxuu soo gaadhay daa salaadu normality sida cunada ula mid tahay laakiin markuu 15 gaadho hadda tira maxay u tukan weydeen هذا هو فترة التربية مو نافع بين هذا فترة العلاج وشوقا بين هذا اخطاء كل عدو اللي قدوي ما احنا قد هذا مركا المروح باهي انتو قعنت هذا كوتشري ويري هاي انا تسيسو طوا بركي الله طلق عليه وحو باهي المه انا نقنعنه لا شيء كيسنه وحوش يقنه قصة وحو قد منه والدين تاني هوري الربادية carruurta habeenkii bay u sheekayn jireen marka xoolaha la soo xareeyo dhaqanka Soomaaliga xoolaha marka la soo xareeyo markaaba lama maalo cabaar baa la daayaa ay fadhiistaan oo degaan waxa salaan oo cala naqsan kadib ayaa xoolaha la maala carruurtii yarayda xoolaha raacday maanta oo dhan dabada ordaysay haddii cadeeduba dhacdo ay soo fadhiistaan way gamgamayaan see la yeelaya marka salaamaha isugu yeedho waa loo sheekeeyaa bari waxaa jiray kambaa jiray waxba loo akhriyaa sheekada saa loo wadaa ilaa ay intay ka gaadhayso xoolaha inta laga maalayo marka xoolaha la soo maalay caana la siiyo sheekada tani markaa waxay ahayd qaab loo tarbeeyo carruurta tan oo waayeelku afkaarta uu rabo مثلا reer baadiyo afkaarta ay rabaan waa inuu ninku nin adag oo libaax iska celin kara oo kan iska celin kara oo haraadka u adkaysan kara oo balada xijisan kara oo qof very hard baa la rabay qof adag way nolosh baadiya taala adkayd marka sheekooyinka looga sheekeyn jiro dhan libaax iyo wax adag iyo waxaas ah inagu uma baahnin libaaxyo badan inuu ka sheekeyno laakiin waxaynu u baahanay ilmahan inaynu can طريق القصه carruurtu way sheeko jeceshay inaynu can طريق القصه diin ugu gudbino saxaaba uga sheekeyno nabi uga sheekeyno qiso fiican uga sheekeyno ilmo kale wanaagsan uga sheekeyno inaad wax u gudbiso waxaynu u baahanay inaynu qancino qancintu waa maxay inagu guriyaheen waxay u badayeen awaamir waxaad moodaa thakna askariya inaynu ku jirno askarta xerada askarta maxaa ka socda amar iyo nahyi unde sida hal yeelo waxa yaan la sameeynin askartu waa amar iyo nahyi waxaad moodaa aabayaasheenu gaar ahaan guriga markay soo galaan awaamir un buuxa wariya fadhiiso buugaaga akhri la soo bax adigu dariskaagi seexa adigu wax cun waa amar bas odagu mar alla markaa guriga soo galo awaamirta bilaabaya waxay ahayd inaynu ula dhaqanno qaab inaynu qancin karno qofka inaad amarto iyo waxa aad ka rabto inaad ku qanciso oo isagu sameeyo waxa fudud inaad wax ku qanciso dabeetana hadhow si routine isaga soconaysa hadduu qanco haddaad se amarto waa intuu kaa baqbaqayo waa amartani way soconaysaa intuu 10 jirka iyo 12 meelaha gaadhayo laakiin maanta 13 gaadhay naga tagbu ka horreeyo waxba yeeli mayne
idan wax waliba waxay u baahan yihiin inaad qancin karto. Maalan luqmaan baa ilaahay qur-aanka kaga warramay, luqmaan alxakiim. luqmaan waa nin xikmad badan. ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya in xikmad la siiyey. haddana luqmaan qisadiisa qur-aanka oo dhami waxay ka warramaysaa in kooban oo ah isaga iyo ilmo uu dhalay war dhex maray bes. ilaahay qur-aanka wuxuu ku sifeeyey walaqad aataynaa luqmaana alxikma baa la yidhi. luqmaan xikmad baanu siinay. xikmaddii luqmaan la siiyey markaas aynu qur-aanka ka dhex ragnaa maxay tahay? waa tan soo socota. waid qaala luqmaanu libnihi wahuwa yaciduhu ya bunay laa tushrik billah. luqmaankii xikmadda badnaa ilaahay wuxuu leeyahy waxaad xustaan markuu ilmihiisa wacdinayay ee uu ku yidhi ilmahaygiyow laa tushrik billah, ilaahay u shariik yeeli. ma amarkaa intuu siiyey ama nahyigaa intuu u dhiibay miyuu ka tegay? maya. ina shirka la dulmun cadiim buu yidhi. wuu u sababeeyey. maxaa shirkiga uu u sabaynay? ahba buu yidhi shirkigu waa dulmi weyn. ilaaha ku abuuray ee ku arsaaqay ee ku nooleeyay wax kasta ku siiyey, haddaad cid aan isaga ahayn caabudo, cid kale adu mahadnaqday, ilaahay wax ku siiyeyna waad dafiraysaa. idan wuxuu leeyahy shirkigu waa dulmi. shirkigu waa dulmi. wuxuu u tilmaamay yaa bunaya aqimi salaati waamur bilmacruufi wanha cani lmunkar wasbir calaa maa asaabak ina dalika lamin cazmi